السلام عليكم أصحابتي قالي جامل والباب شوكتان هو أنا حمدي قرن هالكن نقدر ونسان ويسل حمدي قرن ميديا عاو حنين وذا الشيء يروج عيلو كده تعطي لمانة كسوجن مجال اللاس عنود ينواحي كده الشيء كذا نوويل يجبر كوكلا السجنان مركو عيل كود بلعبة نيجي مجال اللاس عنود يدقمو هوست ماذا إسلام مجال اللاس عنود قصة العوان كده وحلا لها قلب شوي يقفان لجمع مكرين waxay ku bilaabanaysaa sida tan anagoo xusnay dadka inaanan magacyadooda sheegi doonin waliba waxa qisada ila soo wadaagay wiilka oo ahaa qofka isagu gabadha jeclaa hadaba qisadu sidan ay ku bilaabanaysaa waxay ahayd buu yiri muhiimadayda koowaad waxay ii ahayd saaxiib walaal ehel isbarashadayadii waxaan siiyay waqti aan tiro koob lahayn aan isu hurnay jaanis walba aan hayno kala maqnaanshaha dartii waxay sababtay inay wax walba iga codsato aan u tixgeliyo kala fogaansho qaatay bilooyin iyo hilow xiiso badan kadib waanu kulanay iyadoo aan ka marnay dhibaato iyo waxyeelo iyo caqabado aad u badan maadaama gabadhu aysan ku sugnayn magaalada Laascaanood si ay u timaado magaalada Laascaanood ayuu dhibaatadan ka maray inta leeg wad dareemi kartaa qof family-giisu san magaalada deganayn inuu ka soo tago oo meel kale oo eheladiisu marka ay ku sugnaayeen وجماده وياهي waxaan wada saarnay hormadadii horumarka iyo hiigsiga hamiga aan nolosha kala hayn iyadoo igu adkaatay buu yiri waqtigii aan ka codsanayay inay timaado halkan alxamdulillah laakiin way u suurtooday taasi oo way u hirkashay mar walba ay la soo hadasho waxaan dareemi jiray farxad aan la soo koobi karin dib walba ay jirto ama haysato waxay ii ahayd buu yiri dhibaato aniga igu dhacday waana kala qayb qaadan jiray waad dareemi kartaa qof aad jeceshahay dhibaatadu markay ku dhacdo inay adigana kugu dhacday ayaa dareemaysaa marka wuxuu yiri maadaama ay dhibaato iyada la soo gudboonaato aniga dartayna ay u timi magaalada Laascaanood waan la dareemi jiray waxay dhici jirtay buu yiri waqtiyada qaar inaan shaqooyinkayga u kansalo si aan iyada waqti ula qaato oo aan ka biyo cidlada maadaama ay magaaladii ku cusub tahay jacaylkayagiina وهالكا كتاب قاضي وحيابا بدن أنا جانس أنا سجوا وايد جرني أما إن أنا وقت وذا قاضنا مركان مجال دي أنا سكو مجال نمي أي ماشى كبحال هذا بس الندوب بدن أنا وذا سعني كدي وحاب بلعبتين نلا المرجلة إياه نسقان نلاشي وناك سنيد وحير هذا الكيف حدا أنا وذا قيب سنجرني وحير هذا كلن كي أنا وذا قادن جرني وحير هذا جوابه فريمة هيجا waxaa yaraaday jawaabihii fariimihii aan u soo diri jiray waqti badan kadib ayay ii soo jawaabtaa halkaas ayay sheekada murugadeeda ama xanuunkeedu uu ka bilaabanaya intaas oo dhan iyadoo ay jirto waxaan mar walba uga cudurdaari jiray arrin haysatay oo ahayd family problem aan cudurdaar uga dhigi jiray aanan wax isbedela ama wax xumaan aan tusi jirin maadaama gabadhani ay familygooda problem yar u ka dhaxeeyo waliba naf wax jecel ayaa ku khasbaysa inay isaga tusto inaysan gabadhani wax eeda lahayn ay family problem haysto waayahay haddana waxaan arkay in wanaagii iyo xiisihii la ii qabay uu meesha kasii baxayo sababtoo ah buu yiri muran iyo dood shaki aan la igu qabi jirin awal oo meesha yimi habeen walba dood taagan xanaaqan jirin iyo wax la igu xanaaqo aan meesha olin murugadii ugu xumayd halkaas ay ka bilaabantay wiilka walaalkeena ku dhacday yacni qofku markuusan ku rabin ama ka xiisa dhaco dabcan muran qaylo waxyaabo badan ayay iska yimaadaan anoo isku maaweelin jiray buu yiri mid ka mid ah heesaha ay fanaaninteenu qaado ayaa waxaa yidhi sidan أنا وذا شركة أقبل ونرجع أنا كلا جوينا استريح كقاعدة أنا كسر عليه هذا نريد خلدي أنا وذا شركة أقبل ونرجع أنا كلا جوينا استريح كقاعدة هرتعاو أنت سأين كسر جبين الناس كذا وشيكو هذا حنون بدن ويدير تهاي وشيكو هذا ودير هنتي لما سوكو بكرو waxaa lagu soo diray WhatsApp-ka
waxaan kula talin lahaa horta dadka lamaanayaasha horta lamaane lama oran karo ee dadku markay is jecel yihiin xiriirku ka dhaxeeyo gabadhu haddii wiilka ka xiiso dhacdo intaan jacaylku fogaan inaan kan horta qisadiisu aad bay u dheertahay intani waa inta sheekada ee basiidka oo weliba iisoo dulmaray iina maxaan sheegayay soo koobay maadaama uusan isagu dhammaystiri karin wuxuu ku leeyahay markii aan qoraalkan qorayay ama aan qoraalkan aan qorayay runtii kumaan sugnayn laascaanood waxaan u aaday jawi bedelasho meel ka mida kayga Soomaalida dhibaatada intaa leeg ee wiilka ku dhacday waa dareemi kartaan haddaba qaybta koowaad intanaynu kusoo afmeerinaa la soco qaybta dambe iyadana assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu